بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال ميل كستو جوجتان halkan waa Universal TV iyo barnaamijkii falanqaynta toddobaadka Universal waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan falanqaynta toddobaadku caqabadaha guurka dadka kala fog ee jooga qurbaha iyo waliba dalka gudihiisa sidoo kalena waxaanu barnaamijkeena caawa ku falanqayn doonaa in dhalinyarada kala duwan ee ku sugan gudaha dalku hableeyeynaba ay aad u jecel yihiin ama ay xiiseeyaan sida la sheegay dadka qurbaha jooga waxay kala qayb gali doonaa barnaamijkeena caawa in kasta oo aanan idin kala tilmaamayn oo ay saxufiyiinta kala duwan ee ka hawlgala Somaliland badankoodu iyo waliba haldoorka kala duwan ee dhigta jaamacadaha iyo waliba dhalinyarada reer Somaliland ugu horreyn waxaan barnaamijkeena ku daafuran doonaa su'aasha ah dhalinyarada Somaliland ama gudaha ku sugan ma jecel yihiin ama hable iyo inamaba haadaane dhalinyarada qurbaha joogan mubaarak baan ka bilaabayaa mubaarak fikirkaasi maxaad ka qabtaa horta caqabadaha guurka dadka meelaha kala fog jooga wuu badan yahay markaynu dalkeena u soo noqono horta dhalinyaradu guud ahaan waxa uu hanqal taagan dibadda marka laba mid un baa caqabado noqdaan oo caqabadu maray gabadhu ninka ka xaynayso oo ninku dibadda joogo iyo maray gabadhu iyadu dibadda joogto ninka ka xaynayso marka caqabadaha badan ee inaga saameynta ugu badan nagu yeesho waxa weeyaan inkastoo dibaddiina laga ogolayn raggu markay dibadda joogaan dumarka xaga joogeen kaxeeyaan marka caqabadaha ugu badan ee nagu reeba waxa weeyaan reero badan oo markii muddo qaato ay muddana ay gabadhii iyo ninkii wada joogaan aanu ninkina gabadhii ka xayn reero badan oo sidaa ku burbura caqabadaha ugu badan horta markii nagu leeyna ka wataa soo jeedinteeduna waxa weeyaan horta risq iyo quudkaba ilaahay baa haya dee qurbe iyo gudo ilaahay baa qof walba wuxuu qoray intuu nool yahay taa ilaahay bay noo ballan qaaday marka waxaan oran lahaa fikirkan aaminsanay labada qof ay isfahmo un baa nolosha si wanaagsan oo waara wada qaybsan kara marka waxa muhiim ah in dadku horta fahmaan macnaha guurka ka dambeeya inay fahmin aan loo fahmin in guurku dibad iyo ay tahay meel sheel isku tago way waan ku soo mubaarak maxamed adigu fikirka ah in dhalinyarada ay iyagu aad u jecel yihiin ama hanqal taagan dhalinyarada qurbaha arrinkaasi sidoo aragtay bulshadeena ama dhalinyarteenu waxa waa arrin jira inay jecel yihiin dadka ka yimaada qurbaha ama inaan ka yeelan taba labadaba ujeedada ugu weyn ee ay ka leeyihiin waxaan u maleynayaa ama sida fikirkayga aan ila tahay inay arrin dhaqaale qusayo dhaqaalahana qofku halkan haduu joogiyo haduu halka joogo labadaba waxay ku xiran tahay isagoo hadba sida uu dadaalo maxay adu lamaana malay may waxaan ahay nin dhalinyaro ah waliyan aan guursan baa laakiin dhalinyarada ay shaqadu iska badan tahay imika hadda qof walba oo bilaadanaba qof baa muxuu ahaa xiriir la wadaaga ma dibadda joogsan mise gudaha wallahi anigas inkastoo iska tahay tub privacy arrin privacy oo arrin yahay waxay shakhsi gaar ah laakiinse anu waxaan doorbidaa qof wadanka joogay wax bartay oo tayadiisa dhisay inaan maxay guuriga nolol la wadaago aad baad maasantay hablaha dhinaca hablaha si nadir adigu fikirkaasi maxaad ka aaminsantay fikirkaas uu jira wayna jecel dadkeena qurbaha laakiin dhibaato ayaa keentay oo lama oran karo boqolkiiba boqol way jecel yihiin laakiin dhibaato wadankeena ka jirta ayaa dadka qurbaha ka doorbire ama income ha noqoto ama nolosha xaaladda bulshada aad koto ayaan baa noqotay in dadkeena qurbaha jeclaadaan laakiin qof kastaba uma exactly uma jecla laakiin adigu ka nadir ahaan fikirkaaga ama hobbigaagu bal ka war hobbigayga ma jeclin qurbaha tago waxaan jeclaa wadankayga wax ka qabsado laakiin waan interest gareed inaan sophisticated soo noqdo aad baad maadsantahay xagga ma ku soo noqonaya ridwaan baan siinaya fikirkaasi ridwaan adigoo soo dhageystay fikrada kala duwan lama qiyaasi karo lama wada oran karo adduun baa la eegtaa iyo lama wada oran karo qof kasta wuxuu doonayaa qof la noolaada guurku micnaha uu leeyahay marka koowaad islaamnimo waa inuu qofku kaga baxo kelinimada buuxiyana rukun ka mid ah rukumada ugu waaweyn ee islaamka oo ah in ummadda islaamka la badiyo imaamka qofkana boqolkiiba 50 uu noqdo mid qawiya oo jooga oo uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu dardaarmay in qofku uu guursado markuu noloshiisa u boqo inuu dambi galo midda kalena inuu islaamka badiyo qoys iyo abuur ay ka facraanto dadkiisa uu soo kordhiyo qoladan inkastoo calaf uu yahay oo calafku ka weeyahay meesha ku jirta oo laga yaabo qof inaan dibadda jooga doonaya ama wiil dibadda jooga aan oo helin laakiin qofka noloshiisa marka loo eego doodiisun baa lagu xukumi karaa inuu khaldan yahay ama inuu saxsan yahay marka la weydiiyo sababta uu guursado laakiin nolosha waxa muhiim u baan u arkaa qof kula jooga oo aad nolosha wadaagtaan dib iyo dheef inay ka qiimo badan tahay baan u arkaa shakhsiyan waan soo noqon caqabadaha maxamed taajir baan siinaya bal isagu arrinkaasi fikirka wuxuu ku daray inagoo caqabadaha u soo noqonayna
iyadoo janaalaha waxa la yiraahdaa bariga hore Soomaalida dhexdeeda ka jiri jiray ayaa imika waxa soo kordhay marka baasaboorka iyo in qofku uu dalalkan qurbaha inta badan iyo isaga laftigiisa in baasaboorna la helo loona shaqo tago dabcan ka helitaankii qof meel kale joogo waad ka heli kartaa dabeecadahan waa isla keeni kartaano aaladahan la isticmaalayaa waxay keenayaan inantii jaarkiin iyo inantii England joogtay waxay si uun bay isugu marka la isticmaalayo aaladahan si uun bay isugu dhawaadeen baybka laakiin dhibtii ugu weynad waxay noqotay guurkani haddii uu dhaco muddo dheer ba waxa qaadanaysa in labadii qof ay 3 sano bil kaliya wada noolaadaan marka ceeb weyn ba guurka ku imanayso ah in kalinimadii aad doonayso inaad ka baxdo oo aad nolol fiican oo lagu la qaybsadaa caqabada maxamed maxaa keenay ma qofkii maqnaa baan imanayn siday qofkii adigu kala qaarad baad ku nooshiino dabadeetana waa telefoonka iska weeshada marka aad bay u adag tahay arintaas waa ku soo noqonaya waxa siinaya Cabdiraxmaan baa siinaya Cabdiraxmaan fikirkaaga adigoo ku daraya runtii horta marka hore Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala qof walba u qoray qofka soo jeediisa noqonaysa wax adiga ku xiran ma qof hargeysa joogana niyadaadu isaad u doonaysid Ilaahay kama dhigayo laakiin qofku duu fiicantay inuu qofku ham yeesho laakiin sababaha jira waxa kamid ah hadda anu oriban leeyahay halkan waan ka salaamay runtii orideedu hargeysa joogtay markii ka timid qurbaha isma noqon halkan baan isku baranay ima sheegayna halka ka timid laakiin tacalif bas ku kaygay inta badan ana waxaan ku salayn karaa in dhalinyarada dalka joogta ay ku hamiyaan inay guursadaan hableena qurbaha jooga laba marxaladood baan anigu ku sababan karaa marxaladda koowaad oo ah horta dalkii dhalinyarada wax shaqo ay haystaan iyo camal haystaan maanta ma jirto risaaqada Ilaahay baa qoray waa run laakiin qofku waa inuu qorshe yeeshaa hadda ninka maanta gurigooda ka soo kacaya ee abihii nusaca soo sinaya malqaaxida masha wuxuu ku xabiyo oo sooynayo dareerso ku samaysan karaa ma ku dooni karaa reerkii taasa ma shtaala waa in qof marka hore qorshe uu si samaystaa waa inaad camal aad shaqaysataa waa inaad marka aad u dhigtaa reerkaagii dee waxaad ku kafar garan karayso dhintole aad ku shaqay reerkii ku dhaqi karaysid laakiin dinii qaawani runtii ma qaadi karo qof kale Cabdirashiid waxaan soo ku soo noqonaya caqabadaha inagoo waliba sii gali doona dhibaatooyinka iyo caqabadihiisa inagoo u sii dhaadhici doona Cabdirashiid qofna ma jeclaan u malaynayaa qof ka fog inuu nolol la qaybsado laakiin anigu fikirkayga waxaan qabaa 100% qof maqan way adag tahay laakiin haddii calafku yimaado nolosha wala la qaybsanaya way Mustafa Xasan runaatii doorta guurku waa wax Ilaahay inay inagu waajibiyo qof kasto guur kale inuu guursado way wanaagsan tahay mid kale caqabad sababta loo guursanayana way nolosha kelimada laga baxo la galo nolol baraada ah oo la wada farxo oo la wada qoslo oo wixii risqi la helo la wada cuno dadka qurbaha jooga xaq boolin la guursay laftigooda oo inaan ku gafna ma xaqooda laakiin waxa muhiim ah Ilaahay xadiis buu xukula xadiis qudsi ana cinda dani qofku wuxuu iga malaystaan aniguna siinaya marka hadda salaad soo tukato aad ku ducaysto Ilaahay in qurbaha joogtay si waxa laga yaabaa Ilaahay ku aqbalo marka waxaan aaminsanahay qolada qurbuuna halkooda iskaga ducaystaan iyaguna inay ducada xaq ka wataan si kuwa iyaguna isku guursadaan qolada waddanka xaq ku ducaystaan marka si loo kala amaan helo si aan isku dhalaacay baan aaminsanahay way ku soo noqonaya hoodan siinay anigu runtii horta guurka qurbaha waan ka soo horjeedaa waliba si weyn baan uga soo horjeedaa inamada waxaan oran karaa reer Soomaaliland amba Afrika jooga waxay u door bidaan inay dumar qurbaha jooga ay guursadaan waa si ay uga maarmaan inay maxaa heeday gabadhaas ay biilkii bixisay iyadoo ismaamushay iyadoo hawsha ay ku filatay hawsha iyadoo wado marka biil buu ka cararayaa baad leh biil iyo hawl ka carar weeyaan inamada reer Soomaaliland ma jecla inay shaqaystaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rag iyo dumarku wuxuu abuuru kala fadilay Ilaahay wuxuu aayad Qur'aan ku leeyahay الرجال قوامون على النساء rag ayaa dumarka ka masuula marka taas biirnimada ilaa weyn waxa iyagu doonayeen dumarka iyaga masuul ka noqdaan marka awoodii baan jirin ay namada ku shaqaysan lahayn wax kala soo bixi lahaayeen qofka bini'aadamka ay wuxuu dhashay kiyo qaawan Ilaahay bana arsaaqada oo qoray qof walbana adduunka markuu iman Ilaahay arsaaqadiisa ugu soo raaciyo marka waxaan oran karaa anigu 80% inamadu waxay u door bidaan inay heblo qurbaha jooga gursadaan waa si wax biilka carar weeyeen ma aha maxay heeday wax kale ma raba inay shaqeeyaan way hoodo ku soo noqonaya AC horta haddaan fikirkayga ka dhiibto doodan caawan iskugu nimid caqabadaha guurka dhalinyarta waddanka joogta iyo dhalinyarta qurbaha joogta horta kuwan qurbaha joogana waa kuweynii iyaan laga fiigin mar walba iyaan la odhan meel kale ka yimaadeen iyaan iska fogeynin haddaba dee sababta keenaysa in dhalinyarteenan halkan joogta tarasgarayso ama xoogga saarto inuu helo qof qurbaha jooga laba sababood midunbaa ku sababaya
ama duruuf qofkii haysato qofkii door bidayo inuu duruuftan haysata ama dee wadankii ha ka taagnaato shaqalaan ha noqoto ama duruuf kale ha noqoto dee isaga dee baysigiisa ka mid ah uu doonayo inuu qofkan duruuftii ka kaabo dhinac dhaqaalo kale uu duruuftii ka kaabo ta kale waxay noqon karaysaa iyadoo dee tii ilaahayna taalo qofkii oo halkan oo deg shaqaysta qof dhalinyaro wax bartay ah oo dadka bareydka ee wadanka dhalinyarta ee dee aqoon-yahanada ka mid ah ayaa haddana isguursanayaan qof qurbo jooga taasna dee laguma xidhi karayo lama odhan karayo dhalinyartii wadanka joogtay waxay focuska saarayaan dadkii qurbaha jooga ayagoo dhaqaale raadinaya tii calafkuna way taallaa tan kale qofka duruufta ku sababaysana way taallaa waayo siciid baa siinaya qodob kale baan u gudbi doonaa laakiin ka hor siciid baa siinaya caqabadu meel walba way runtii ooli kartaa qofka halkan ku guursaday bay runtii caqabadu qabsan kartaa qofka halka qurbaha jooga ayay runtii caqabadu ku iman kartaa marka aanu ma aaminsanayn in la yiraahdo qofku markuu haweenay qurbaha joogto uu guursado bay runtii caqabadii ay haysan kartaa runtii haddaynu ka hadalno arinta guurka gudaha waxaad arkaysaa hablo yaryar oo da-yar oo runtii tiro badan oo lagu oranayo waa carmal hadda waa 20 jir waa 22 jir haddii doonto waa wax ka yar arinta caqabada haddii runtii aan intaa kaga imaado caqabadu labada dhinacba runtii way ka caqabada maxaa keenaya hablahaas cabdirashiid haddii aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo caqabada laba qof oo bini aadan oo isguursaday runtii waxa laga yaabaa waxyaabaha qaar inay isku fahmi waayaan marka caqabadu halkana way ka imartaa halkaana way ka iman kartaa marka waxaan uu uga socdaa inaan la oran karin meel gaar ah caqabadu runtii ka jirta arinta kale horta guurku waa arin muhiim ah oo runtii nabigeenu kaleey salaatu salaam uu nagu dhiirigeliyay qofka waxaya iyo qofka aan waxba haynba labadaba guurku inuu ku dhiirado oo uu guursado runtii aan waxaan arkaa arin aad u muhiim ah shakhsiyan anu haddii aan iska hadlo waxaan ka mid ahay dhalinyarada hargeysa ku nool runtii faamiliyadooda ay runtii degan yihiin amaba dee xaaskaygu ay aanay wadanka ku nooleen laakiin meel kale ay ku nooshay haddii anu ku siira aan ku dheeraanayn ujeedada qofku uu guursanayo iyo intaraska uu qofku leeyahay runtii bini aadamku isku mid maaha qofka dadka qaar baa waxay doonayaan in runtii ay nolol sameeyaan oo labada qof isfahamka markaa dhexmara markay sarkaan iyagoon dhinac dhaqaalena ka eegayn runtii inay diba tagaana aan ka eegayn dadka qaar baa markaa isfahamka labada qof dhexmara ayaa keeni kara runtii inay isguursadaan arinta kale jirta iyaduna dee kolley qofka gudihiisa lama oga labada qof markay sheekaysanayaan waxaa laga yaabaa labada qof mid ka mid inuu doonayo inuu runtii dhoofo marka arintaasina arrin marka dibadda la joogo ee labada qof sheekaysanayaan runtii la odhan karo in yar la odhan karo maaha qofkan runtii wuxuu doonayaa inuu dhoofo runtii arinta kale ku saabsan iyaduna dhaqaalaha waan soo noqonay mawduucaas waan kugu soo noqonay si waxaan siinay nadira siday hadda imka hooda ka dhawaajisay waxay sheegtay in inamadu ay yihiin ama ragga baan idhaahdo oo weliba aniguba ka mid ahay inay yihiin biilka carar arrintaas nadira ma la aaminsantay ولا لا مستنيتاس هذا واحد شرتين بدك رجل كرسان قبل دي بدك كتم صدق مسؤوليتي وكعرسة ودن كين لما أنتوا إنهم ناقفت دقالة بدن السوق اللي مو يعني قف كله غير مرة كان كراين مستنى هاي مركات هاسا كين سن رجل بالكعر النقدان الشهو قعبا ما يقول الصوبي لي تاسا صوبت ولكن مركا حلقة أساء الله هاي ندراي رسول كان صلى الله عليه وسلم وحوري هدي أتجورستان فقر كبغدان لبية وصدحية وأفرية مو أورانك عرض أو تجا دبده أرنت هسالك تجيب بودن هذا دمرتين حاجات تجيب بودن أرنك هسي إن لو ولا لبية ولا ولا صدحية ولا ولا أفرية ولا عرض يا فقر ويترت لكن ده الرسول عليه الصلاة والسلام جورسده ولا فقر هذا لكن تن إما فقر متاجنا أو بروبلم اللي بتشرت ويا أو بالشدي بابا سوسان نقطة أيجا سوسان مركا أيجا كهاتشري أو دتك ودن كوج من واي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جورسده بوري لكن سكون هاتشري واي مبارك إن حبلوه وحين ويا اللي تقول هذا إن بيلك عرتين مركا هذا حبلوه قربها شو قدون سان أرنت هاسم حاجة كده فحص بسم الله الرحمن الرحيم horta de mas'uuliyadda Ilaahay dadka u kala dhaliyay qof mas'uuliyadii reerkiisa ka soo baxayna waa la arkaya
qof mas-uuliyaddii reerkiisa aan kasoo bixin waa la arkaya laakiin waxaa leeyahay laakiin mas-uuliyadda caqabadaha xagga marka noloshu loo cararaya. ha, caqabadaha noloshu horta way badan yihiin ka dibadda jooga laftarkiisana caqabadaha heli kara ka gudahana caqabadaha heli kara Waay. laakiin maaha in nolosha wadaagideeda dee laysku riixriixo reerkii wuu biilin kari waayo iyo reerkiisii buu wadan kari waaye labada qof ujeedaday nolosha ka leeyihin de maaha biliyo in la helo uun adduun quuto daruuri ee waa in noloshii la isla fahmo oo maalinba dhibtu meel bay ka iman kartaa maalin xaggii xaajigay ka iman kartaa suuqu ku xumaan karaa de marka in loo arko un maaha xaajigu inuu yahay nin gurigiis ka jiifee waan horta de noloshii la dersaa waa qabadaan maxay keenaya maxaa dhiba laakiin dooda hablaha dooda hablaha ku tacalluqda in ay raggu u baahan yihiin inay shaaha guryaha ku cabaan oo dibadda laga soo biiliyo arrintaasi weli uma digin de horta way jiri kartaa de niman dibad ma diidi karo ma dafiri karo ma oran karo ma jiraan raggu waa complete way wada shaqaystaan dadkii dafreen saysan ay sinay meel dadkuna wada sinay xaaji iska danin xaaji iska way jira daan xilkaasba saarnay inuu oo day biilkiisaas kaga qaracsanay marka waxaan oran karaa anigu de in la iswada eeday qolobo eedaysan maaha hadafkeedu ujeedada guurka laga leeyahay in la fahmo oo de halka laga soo socdo weeyaan waay maxamed taasi runtii dee markaynu dood la odhanayo waxyaaba badan baa imanaya biilkaa imanaya hablihii oo nolosha qaali ka dhigay oo yidhi gurigii iyo marka horena waan ku jecelahay marka dambena dee jacayl ma jiray adeeraynu noloshan maaree markaa ninkii 7,000 8,000 10,000 baa lagu soo dalacaya marka noloshii caqabado fara badan baa iska jira caqabaduna way jirayaan inta la noolyiba laakiin guurkan dabadii iyo gudihii ka dhacay hablihii dabada joogina waa kuweeni kuwa halkan joogaana waa kuweeni inamadoo keliya tina dabada uma yaacaan maca hablaha dabada u yaaca hablaha laftigooda de iminka inantu inaan ay aad iyo aad u jeceshahay oo waxaan ku leeyahay de waxaan ku qalbiga isugu hayaan hadduu mid dabada ka yimaado waxa orasa warka yar screen ka dabada joogay waxaan ku maalin biisa ka dhirgiriyay waxa ka cararsaabay ki gudaha joogay ki aad uga baxsanaysaaba marka yacna arrintii ma ahaba raggu keliya taa qurbaha ku xiran ee hablaha laftigooda uga sii dheeriyay raggu way ka dambeeyay way dubdhacaan baad way dubdhacaan laakiin arrinta meesha taala waxa bay tahayba in qurbihii iyo gudihii markaynu taaganahay qofkii imika inantii Canada joogtay iyo inankii Hargeysa joogay ama inankii Ingiriiska joogay iyo inantii Garowe joogtay in dhibaato weyn ay ku hayso kala fogaanshahan ay kala fogyiin oo micnihii rasmiga ah meesha laga lahaay dadku wehel ay soo noqdaan ay ka wada sheekaystaan maanta gaadhban street gaadhnayay ishaarada ay qabatay iyo hay'ad maxaa haysaa iyo cashadays iyo caawa dhaxan baa ka dhacaysa maxay ka wada sheekaysan telefoonku ma wadi marka mushkiladdu waxa weeyaan noloshii baabaynu xagaasay nolosha caqabad kaga noqoto 3 sano marka la soo joogto marka dambe waxaad soconaysaa adiga waa su'aal dubad su'aal maskaxda isu weydiinaysaa ay moogto marka su'aalahaas si looga baxsado de waan qolo walba barsiga iska bismilaysataa waan ugu leeyahay way hoodo maxamed wuxuu dhinayaa lafta hablaha laftoodu ay iyaga laftoodu xagga qurbaha u cararayaan iyagoo doonaya lamaanaha ama xagaasi lacag iyo hawlihiisaas arrinka maxaad ka leedahay wuxuu hablo guurkii bay qaaliyeen horta mid baa muhiim in la ogaado hablaha bariga hore waxa laga bixin jiray 100 geela iyo faras iyo waliba qori baa laga bixin jiray imika jooga kan $2,000 waxaan gaadhin ninba bixiyo waliba isaga gurigiisa wax la keeno wax la alaab la soo raro ay hadana ka cabanaya habliba guurkii qaaliyay hablaha halkan Hargeysa jooga waxa ku kalifay in rag qurbaha jooga guursadaan waxa weeyaan caqabadaha ka haysta iyaga dalkii oo sababta uu nin walba wuxuu qornay hablihii baa batay horta kelmadda si rag la soo taagan yihiin ninkasta su'aal weydiiso kuna hablihii baa batay guurkii baa la qaaliyay waxa waxba kama jiraan waxa wax ka badan bay habla lagu gadan jiray lagu iibsan jiray de hoos laakiin hoodo markaad sidaa leedahay miyaanay ahayn in markaad leedahay 2,000 baa laga bixinaya midan marka hore ay sheeko wadaagu soo socdaan waxaad ku qanacsantihiin 2,000 iyo wixii ka yarba in hadhow guriga kula tagtaan markay sheekadu aad gudaha gashaana ay siisina ballaarato arrintaasi lafteeda idigu maxaad ka qabtaan waxa waxba kama jiraan maan ugu oran karaa inan waliba waxa jeceshay qiimaha ugu sareeyo ugu fiican in maxay yahay inan waliba hooyadeed qori waxa laga marka waxa la dibadda la taagay kuma nidhaahna sida kuma nidhaahna ha way si horta waxa muhiim ah nolosha horta marka hore in la fahmeeyo noloshu shar tahay aan dhinac kaliya aan ka imanin labada qof ee bilaadanka markay sheekaysanayna haasawayaan mustaqbalka ayaga samaysanaya inantu kaliya inuu ogolaato ma inuu ninkan mustaqbalka inuu samaysanayo inuu aragto sawir ay ka qaadato inuu ninkan mustaqbal samaysanayo ee guriga u tagaysay adoon noqonaysa inay sawirto ma nolosha shar baa lagu yiri marka la haasawayo waa in wax walba la lafaguraa ugu yaraan caqabadaha iman karaya maanta dadkeena wada sheegaysta wadada aqoon wada leh kulli wax soo wada bartay inta ugu yareeyaha maanta haasawayso in secondary dhigata marka la haasawayo waa in nuxurka loo dhaadhaca
haddii danka mustaqbal laga wada hadlayo oo danka wax walba la fukra laakiin haasaaweyn hadduu marka hore naga noqdo dhaldhalaal iyo dusha iyo waan ku jecelahay iyo kolba habeen halkan la isku raaco hadhow gunta markay gaadhana oo sawir kala soo baxo caqabada koowaad horta halkaas ay ka imanaysaaba inta la haasaaweyn runta la iskuba sheegeenba oo inaan kuna sheeganayaa maxaa diiday runta la isku sheego waxa sababta koowaad horta waxa diiday waxa deegta koowaad anu hablahan saaraya sababtaan u saaraya weliba waan raacinaya inantu waxay jecesha waxay arkaysaa inay saaxiib yihiin oo ay la sheekaysato ama calafku siisiyay ama nasiibku siisiyay inaan aabiyahan ti leeyahay oo magac leh oo la wada garanayo inantii ay saaxiibka ahayn maxay doonaysaa saaxiibadeed wadada martay inay marto laakiin kama fikirayso mustaqbalkeeda waxay ka fikiraysaa dariiqa saaxiibkeed martay inay isku daydo inay marto inankii sabab kasta oo inantaa ku hantiyayo maamaha baa odhan jirtay dee Soomaaliya oo aanu qiimo kan kasta oo aaminsanaynba dumarka dad beenna waa lagu soo xirageliyaa runna waa lagu dhaqaa oo dee dhinaca kale marka laga istaago dee khalad hayba inanku si kasta uu doonayo inantan quruxda badan uu jecel yahay oo ku soo xirageliyo xeelad kasta uu isticmaalaya waa inuu ku soo xiragelinaya sababta koobaadna waxa ku kaliftay inanta laakiin hadduu inanta ka arkayo inan waaqiciyana oo dee marxaladda ka wada hadlayn la fahansan ninkuna marka waxa la dhibaatada iyo problem kaba dumarkan loogu wacan baad leh sometimes waxaan siinayaa dooda ah inaad ragga ugu wacantiin dhibaatada iyo in la idiga sheekeeyo hanti badan iyo guryo badan iyo dhalaal badan iyo dahab badan arintaas maxaad ka qabtaa dumarkaad ragga ku liftaan horta eeda ma hayn dumarka la saaro waxaan leeyahay kulli gabadhu markay inan tahay waxay rajaynaysaa ay hamigeeduna yahay nolosheeda qofka fiinaya marka leeyahay gabadhan ugu wacan kuguma wacnay ada xagga is dhigay weeyaan kawdhe waayo hadday dhab kaa tahay oo gabadhan aad jeceshahay waad raali gelin lahayd ma garatay markaas gabadhii maadaama waxyaabihii ay ka rajaynaysay qofkan aanay ka dhaxarkayn waxay odhanaysaa kulley qofkan maxaa kugu wata kulley nolosha guurkuna maaha nolol jacayl keliya jacaylku maaha dhaqaale kasta soo gelaya gurigii taasina waxay ku tusaysaa inay gabadhii ay dhinacaas ay yara janjeersamayso waayo xaggaas gaab ay ka aragtay xagga ninka laakiin markaa waxaad leedahay hadalkaaga waxaad u dhigaysaa meesha jacaylba ma yaalle qofka hantidiisa iyo dhaqaalihiisa iyo sidoo loo kala hanti weyn yahay baa loo kala dooranaya saas baad adu aaminsantahay waayahay maxamed baan u gudbayaa laakiin aan siiyo siciid baan waxaan siinayaa cabdirashiid cabdirashiidoo fikirkaas ah inaydan haddaad xagga rag oo kala aad u baahan tihiin in laydin soo biiliyo oo ay dumarku idin soo biiliyaan maxaad ka qabtaa biil markay noqoto horta waa mas-uuliyad rageed inuu ninku biilka reerkiisa haddaanu dabari karin ama aanu bixin karin ma ahin ama ma aha inuu aroosta baanan u aaminsanahay in dagaalkayga waa inuu hubkiisa istaa gabadh qurbaha joogta laga yaabaa adigoo halkan jooga oo shaqeeya in gabadhaada oo calafkaaga noqotay oo qurbaha joogta ayba kaaya dhaqaala badato dad isqabaa inay wax isa siiyaan hadee ceeb ma haddii gabadhaada wax kusoo tarto waxaan u arkaa qoys wax istaray marka ceeb maaha family in gudaha loo sii galayna horta kulleeyaan waa arrin qaldan baan aaminsanay inkastoo radar waxaasaan leeyahay laakiin maxaad iska difaacsan arrinka ah inay idigu doonaysaa way biilka carar yihiin biilka carar horta nin jeeb yari maba guursado nin biilka carar ahayna aroos ma dhigto marka nin isugun baa waayahay maxamed taajir baa gacanta taagay siciido anigu waxaan dib ugu yar noqonayaa hoodayla jaara doodeedii waxaa jira marka nolol la dhisayo noloshu runtii aad baynu qalad fahanay boqol geele iyo qori iyo faras iyo waxaan macna ma sameynayaan waxaan macna sameynaya si loo wada noolaanay marka in qalbiyo wanaagsan lagu kulmo oo si noloshii aan laga saaro in materialki la qiimeeyo ninkii intuu materialka intuu meel ka keenaba keenun buu koran doonaa haddaba ayaadna halkaa istaago adoon yar baad tahay marna hore soco marna dib soo soco marka waa in materialkii meesha laga saaraayo labadii qof ay nolosha waaqic ahayd markaa jirtay
ay isla rogrogaan marka noloshan waaqaca haddii la isla rogrogi kari waayo waa ta keenaysa markaa in dee hablo fara badanna ay dee cidna ay dhiil la geli weydo rag fara badanna dee ay meelahaas ka fadhiya dhahaan ma annagaa howlgelaynaba ama dee hawshan qurbaha iminka nagu soo fara badatayba waxaad yacnaa isriixaysa weeyaan marka waxaa loo baahan yahay si waaqici aynu fakarno oo aan ninkii dee si cadaawadeed loo odhan 100 halaad baa la bixin jiray 4,000 baad ka cabanaysaa 4,000 gal isagoo 4,000 intuu galan buu ka odhan isna hore socod dib soo socodna hadda waayay oo disna halka cadaawad ka galaysaa marka waa in noloshii dee nolol la wada qaataa laakiin hasaawaha hore maxamed miyaan la isku soo fahmayn mise waxa weeyaan taagu anuni waxaan qabaa hasaawaha hore haweenku ragga wax walba loo ogoliyay sheekir baa jirto oo wadamada carabta ka dhacdo nin faqri dishooday oo xaaladda aad ugu adagtay ayaa inan ay isjeclaayeen marka waa jaarkoodu dabadeetana inantii siday isu jeclaayeen buu inantii waxay tii war in aqal geli biyahaynu cabinaa roodhidii biyahaynu isku cunayna waa roodhiyo biyo looma dhexeeyo daba lama shido dabadeeto sidii masaas ahaa cawna waan dhiganaa adigu sidii bay ku aqasho waa qisa carabta ka dhacdo dabadeetana muddo yaroo bilaba markii deganaayeen gurigii ayuunba gabadhii tiri talaagadii noo dhig damacaan dabeetana wuxuu ku yidhi talaagada naasonay ku sheegay inaan faqri ba ahay dabeetana waxay ku tidhi dee may caynkan wuxuu ku yidhi sunnigii ku heshiinay ba inaynu roodhida iyo biyahaas wada cunno waxay tidhi markiiba inta xagga kale ka wareegtay oo maanaa wax kale ku yidhi biyuhun baan ku dhahay iska qaboojinay marka yacnaa nolol dee waa la qasaya dee nolosha waa la qasaya marka waa in dumarka ay runtii u soo noqdaanoo iminka tusaale ahaan boqolka geel markii la iska bixin jiray xataa runtu waynu uga dhaweyn maalintaas waynu uga dhaweyn oo sheekadu uga dhaweyn marka maalinta waxaynu uga dhaweyn sheekadii intii boqolka geel laga bixiyay saddexdii maalaawe ee Soomaalida qisaska Soomaalida ku jirtay saddexda maalaawe ninba 100 halaad leh dabeetana boqolkii halaad buu ka bixinayaa gabadh gebigoodiba gabadhii ninka way sakaaraysanayaan oo xidhkaasi galiya dabadeeto markay sakaaraystaanba waxa uu imanayaa nin aabiiba haddana soo marteeya marka qisada inta kale uma socono laakiin waxaanu soconnaa in inantu markii boqolkii laga bixiyay dabeetana ninkii gidaar la seexatay iminka haddaad 10 ka bixiso haddana gidaar kula seexamaysa dee war leyd baa tahay koraysaa gurina soo koreeda 10 qola waay maxamed saciid farta taagsi ma goorahan waad mahadsantahay cabdirashiid runtii waxaa aada loogu celceliyey in raggu ay yihiin bilkacarar horta anigu saciid ahaan cabdirashiidow taa ma aaminsanay haddii aan tusaale yar soo qaadano rasuulkeeni calayhi salaatu wasalaam maxamed guurkiisii ugu horreeyey ama oradiisii ugu horreysay markii uu guursaday isagu dee si aynu la soconno aynu taariikhda ku hayno wuxuu ahaa ina yaroo dee adhi jira buu ahaa oradiisuna dee wayna ka daaweynayd wayna ka dhaqaalo roonayd marka arrintaa aada loogu celceliyey leeyahay xagga dhaqaalaha runtii aanu ma aaminsani labada qofna runtii nolosha way sheergarayn karaan marka guur laga hadlayo guur iyo guur laan horta way islaamaan marka aanu maba aaminsani in la dhaleeceeyo laba qofoo laba meelood kala joogo oo runtii wax khayr badan oo dadka lagu dhiirigelinaya intay sameeyeen guur sameeyey oo nolol sameeyey oo guri sameeyey oo runtii nolosha intaa leeg sameeyey in la idhaaho interest bay isku guursadeen iyo in la idhaaho biil bay isku guursadeen iyo in la idhaaho ninku waa biil kacarar runtii aanu saciid ahaan ma aaminsani dad badanoo doodda waxay nagala qayb qaadanaya dhalinyaro iyagoo aan guursan iyaga laftooda waxaan leeyahay dee dooddiinu way jabanta bal horta marka hore guursadaan leeyahay marka ma waxaad ku dhiirigelinaysaa inay gudihii guursadaan mise in qurbaha ay guursadaan oo halkaasi sidii la sheegayaba ay lacagtu iska sugaan haddii aan ku noqdo halkaa qofku haddii aan waxbaba samayn runtii dee ma aha qof wax sameeyey oo time bixiyey oo dadaal bixiyey doon dhaqaale ka baxay nooc doonaba ahaaday inuu xagxagto uu daba istaago uu muxuu gabar qurbaha joogto uu guursaday muxuu halkan u guursan waayey ma garatay arrintaa runtii dhaqaalaha anigu horta ma aaminsani waxaanan aaminsanahay in labada qof haddii ay isfahmaan meel walba ha joogaan inay nolosha ay sii wadi karaan arrinta kale ku darayaana waa arrinta masaafada oo runtii niman badan oo halkan fadhiya iyaguna ku celceliyeen sidaynu ognahay maanta dadkeenu waxay aada u isticmaalaan social mediahina wuxuu runtii isku mid kaaga dhigaya qofkii hargeysa kula deganaa iyo qofkii dunida halkii ugu dambeysay joogay arrintan in laba qofoo laba meelood kala jooga isguursadaan arrin cusub maaha iyadoon aanu social media jirin aanu telefoon jirin wax lagu wada xidhiidhaa jirin waraaq inta la diro sanad sii soconaysa
jawaabteeduna ay sanad soo soconayso ayaa jirtay in la isguursado xilligaa markaanu maanta dhibaato ma arko laba qof oo saacad walba xitaa wixii ay cunayeen bay sugyihiin qofku wixii ku qadeeyay maanta mustafa isagoo ka mid ah dhalinyarada aan weli guursan isagu mustafa saciid wuxuu qabaa in aan ragga iyagu dee xaasistee meelaystay ama qurbaha joogaan amaba gudaha joogaan inaan daba socon laakiin dhalinyaradu doodooda ay wadaan ee jaban ee ah qurbihii buu guursaday ay joojiyaan runaatii dee horta guurku maaha wax qofku dee xirfad iyo aqoon u leh ku guursanaya maaha waa wax ilaahay qofku ilhaamiyo mar un kugu soo dhacaysaa jirta moogti wuu saxsan yahay qofku horta inuu guursadaa waa muhiim waana wax wanaagsan laakiin aniga jecel horta caawa mid baan isuga mid ahoo de saaxiibkay reerna uu leeyahay mana lahaan waa aaminsan kol haddaan gurigii ku wado inuu hooyo waxaan aaminsanahay in gurigaasi xaggaa laftigiisu moogti aanu iskaga ka mid nahay kol haddaan caawa gurigiisa iga leexanay una lahayn xaaskii baan u tegaya ama xaaskii baa cashayay samsan u tegaya aan lahayn أنا سدا هاي تحسنا إمسناي لكن سو مرة أنت ما إذا حاسس بولي هاي دورت سكوت ما هبا إلى هاي بان سكوت كارجين بو قف كرهلي قف فارن سكوت ما هبا إكساكت سكوت ما ها لكن وحلاد هاي مرة كان هالكن شغل waxaan mar walba guurku wuxuu ku wanaagsan in lamaanuhu wada joogaan oo nolosha qaybsadaan oo wada farxaan oo wada qosaan oo xabadal xooda wada cunaan baa wanaagsan ma diidinay duruufakateen labada qof kala fogaadaan oo mustaqbalka iyo qofka guursan si qayb ilaahay bay ku xiran tahay laakiin haddana san xadiiska hore uu sheegay qof wuxuu wanaagsan inuu niyada ku qabto inuu ina waddanka guursado hoodan siirada bagalaya arkii boqolka geela doorta malaha ma jirta malaha dad Soomaaliyeed maanta boqol geela leh habluuna ma habli boqol geela laga bixin jiray way hablaha boqol geela laga bixin jiray waxay ka aaminsanaayeen in la furo ka jeclaayeen iyagu halka inantu maanta ay ka odhanayso waaran maxaan oo dharbaxaysaa markaba aabbaha iyo salaadiina kugu yidhiso ifuro dilqadiga daa bay u jiraan hablahaasi oo waxay ka jeclaayeen in reerkeeda dhaqdaamay ka jeclaayeen boqol geelaba marka hablilaha waxaad leedahay boqolkii geel wix isla bedelay hablihiina way isbedeleen hablihiina way isbedeleen raggiina way isbedeleen boqol geel way isbedeleen wixii way isbedeleen laakiin maxamed baa siinay horta waxa markii hore iloobay inaan u mahadnaqo Universal TV iyo Cabdulrashiid Cabdiwahaab sorry balay ma santiin martaqaadka adigu soo martaqaadeen mar labaad sidii aan dooda ku bilaabay markii hore oo ahayd issue ugu weyn meesha yaala inuu yahay dhaqaale eed moodaa ujeedada qurbaha iyo gudaha basically sida maxay dhamaanteen doodeeda ka muuqata muhiimaddu ma qofku inuu halka joogo iyo inuu halkan joogo muhiimadda meesha dhex taaleen kaarka ee waxa weeyaan inay tahay dhaqaale guurku waa sunnaha adduunyada oo in la guursado waa sunnaha adduunyada la camraya wana diintaadii oo dhameysratay wana la kacabsi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب haddii aad ilaahay ka cabsato guursato maadaama aanu dhaqaalo ahayn wax lagu dhashay oo jiritaankaaga ka mid aanu ahayn oo yahay wax isbedbedelaya oo maantana oo la hayaa britolana lama hayo laakiin taas labada qof ma ku heshiinayaan marka mar haddaynu nahay dad islaama waxa muhiim ah referencekeena ama meeshan u noqonayna marjiceen mar walba waxa weeye diinta islaamka laakiin maxamed adiga haddii kamid iimaan yeelano kamatal haddii inantu ku tiraahdo imika waxaan doonayaa inaad iga bixiso 500 oo gram oo dahaba oo gabagay iga bixiso $4,000 hadhowna ay qalkaygu noqdo $25,000 ma ku raacsantay horta inantan aad dhaqaale laga bixinaya dhaqaale wax ka badan bay u qalantaaba haddii aad karto adduunyada gebigeeda inaad siin karto inaad siisaa ayaan rayahaan aaminsanay sababtoo qofkan qof lagu soo tabcay lagu soo dhisay nolosheeda aqoonteeda tarbiyadeeda dhaqaale waxba sheegi maayo haddaad hayso waad bixinaysaa laakiin si haddii aan lahayn meesha ay taala haddii aan lahayn waxay noqonaysaa laba mid bay noqonaysaa haddii ilaahay kuu sakhraday intii oo sidaa ay kugu aqbasho waxaan aaminsanahay oo niyad wanaagsan isku raacdaan oo iimaan iyana ilaahay arrinkiina aad u dhiibataan in uu dhaqaaluhu badanka bilaabmayo markaad guur iyo reer samaystaan baan anu aaminsanahay noloshuna way isbedelaysaa sidan ahaan mayso waxaan talahaan anu ku dhiirigelin lahaa dhalinyarta in aanu iskaga bilaabayo kow ahaan maanta laga bilaabo waan ka dhaqaaqaya meesha ilaahay waan tala saaranaynaa markaynu ilaahay ka cabsano aynu guur samaysano waxaan aaminsanahay in dhaqaaluhu kordhayaan aad baad mahadsantahay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Universal TV iyo barnaamijkeennii falanqaynta toddobaadka oo aynu ku soo qaadan doono
guurka iyo qurbaha iyo weliba masaafada labada lamaane ee kala fog waxaan siinayaa inankaas isagoo magaciisa ku bilaabaya iyo weliba fikirka qurbaha guurka iyo lamaanaha kala jooga meelaha kala fog markaynu aynu ka hadlayno midkee guurka dalka inanka dalka jooga doonaya inuu guursado inan dibadda joogta amba inanta dibadda joogta ee doonaysa inuu ay guursato inan magaranayay dalka jooga muhiimaddu waxa weeyaan dal iyo dibadba horta kolley meelun baa la wada jooga muhiimadduna waxa weeyaan dee labada qof waxay wada wadaagayaan wuxuu yahay iyo danta iyo ujeedada dee magaranayay ay iskugu imanayaan marka waxaan odhan lahaa waxaan taageersanahay anigoo dee sidii walaalkii maxamed uu sheegay uu yidhi dee ragga dhalinyarada aan dee doobabka ay meesha fadhiya dee doodoodu way jabantahay inay meesha horta ka dhaqaaqaan waa run oonu guursanayna talada oonu kaa qaadan insha allah laakiin waxa weeye muhiimaddu waxa weeyaan labada qof qolada dibadda joogta amba dalka jooga inaan dee la odhan dee jinsi kama hadlin waa dad islaama oo dad isriya afka wadaaga magaranaysa waa dad soomaaliya waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa dhalinyar inagoo kalaa waayahay ma gudaha lagaa joogaa mise dibadda mayde aniga dee markaynu inagunba ka dhiganay inaynu gudaha dee magaranaysa inagiiba gudaha iskaanay iyagiina dibaddeeda ka dhigan laakiin dunideenu waa dee qol keliya weeye laakiin markaad shakhsiyan muxidiin oo ka hadlayso ma dibadda lagaa jiraa mise halkan markaad difaacaysa leedahay lisku waayahay muxidiin waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa hoodo waan kugu soo noqonaya hoodo mustafa siduu sheegay wuxuu yidhi hablihii laga bixin jiray boqolka geela iyo baarqabka hablihii imika waqtiga aynu taagannahay hablihii maaho hablihiina way isbedeleen doodaasi maxaad ka jawaabaysaa horta inamada iyaga inaan isku kalsoonayn naftooda aan aaminsanayn oo kuwa intay gaari beena soo kaxaystaan guri beenna dhakada nagala tusaayo nala gurigan anagaale gaarigan anigaale meel hablaayaan ka shaqeeya wasaaraddaasaan ka shaqeeya waxaasoo dhan waxba kama jiraan hadduu inanta run u sheegi lahay odhan lahaa anugu nin waxba ma haystaba caynkaasaan ahay waxaasan ka shaqeeya shaqadeedu waa sidaa noloshaydu dee caynkaasay ku taxalluqdaa waa odhan lahaa dee way ogolaan lahayd oo ninka raganimadiisii baan ku kalsoonayn hablaha way u qalmaan sidaa walaalkay sheegay in laga bixiyo 100 geel iyo faras iyo wax ka badanba macnaheedu ma aha inaan adduunyo doon nahay laakiin macnaheedu wax weeye dadka bini aadamkahi waxa weeye nolosha ay iska soo doorteen hal gurigu waa halkii nagu noolaan lahaa 80 sano 70 sano hadii ilaahay ku noolaysiiyo waxa loo baahan yahay noloshii kale ka duwan maaha laakiin nolol dhaqaale loo soo doonay qofna adduunyo doon maaha laakiin muhiimadu maaha inaad qofkii bini aadamka ibsatay oo noloshiisa dhan ibsatay laakiin in yar maxay hayday lacag ay bixiyeen bay malaha moodayaan inay maxay hayday u dhigmaan 100 geel haya faraski marka laakiin hooday hadda inamadii lacag ka weydaan marka jacaylkiini iyo muxuu ahaayeen sheekadii iyo hasaawihii badnaa iyo saacadaha badan qaadanayay ee laga yaabo qaar in habeenkiisa wada hadlayaan salaada subax loogu eedaamo ma jiraan meel marka dhaqaalihii baa ka soo hormaray ma wala dhaqaalo kuma soo hormarayo dee wax weyn dadka bini aadamka waa la isku baahan yahay ilaahay muxuu cid ka sinjisa saddexaad u abuuri waayay soo rag iyo dumar mu abuurin lama kala maarmaayo dadku waxay u baahan yihiin tarmaan ay farcamaan marka waxa weeyaan raggu dee iimaanlaada iska daayeen iimaanlaanta iska daayeen lacagta xaqooda waayahay ridwaan baan siinaya waan ku soo noqonaya ridwaan qoyska iyo gurigu waa halka uu ka unkamo qoys reer xaafad qaran adduun noloshoo dhanna ayay saameynaysaa waa kulan aada u muhiima universal mar labaad oon u mahadnaqaya laakiin bal nolosha yaynaan ku eeginun halka angalka odhanaya waa dhaqaalaha ilaahay subxaana watacaala ayaa bixiya adduunka uuna qaada laguma waaro noloshu ama waad heli ama waad waayi horta anigu xaaskayga oon halkan ka salaamayo ikraan axmed xasane waxay ku nooshay caasimadda hargeysa ee dalkan jamhuuriyadda somalilan qoysaanna cidi dibadda nagama joogto aabahayna dibad muu tegin awgeyna dibad muu tegin laakiin nolosha waxaad damacday inaad samaysato meel kasta nolosha waad ku samaysan kartaa cilmi ka badan iyo dood ka badan iyo xog ka badan bay u baahan tahay in laga doodo oo dhaqaaluhu lagama eego mid waan qabaa ninka haddii la yidhaha adduun haddii maanta lagu dhiibo la yaad siin leyd walaashaa iyo walaalka haddii la istaajiyo walaashaabaad siin leyd abtigaa iyo eedadaana eedadaabaad siin leyd aabbahaa iyo hooyadaana hooyadaabaad siin leyd marka in inta ugu badan adduunku oo la qabo walaalkay haddii la siin lahaa islaantayda adduunka oo dhan adduunka yaalla iyadaan u hibayn lahaa siin lahaa laakiin ridwaanow doodahooda ee odhanaysa raggu markay hablaha ay sheeka wadaagga leeyihiin waxay u sheegayaan mala awaal muhmal bay u sheegayaan waxay leeyihiin gaarigan anigaale kan anigaale see hoodaba sheegaysa
doodaasi hooda maxaad de kolley nolosha qofka waxaad u sheegto ma min qiyaaskiisa uu qaadanaya haddaad u sheegto inuu abaha Bill Gates yahay hantida Bill Gates wax u dhigmay inay qaadanaysaa laakiin haddaad u sheegto abaha inuu reer miyo sac lahaa de min qiyaaskaas bay qaadanaysaa noloshana waxaba islaamo runta wax ka wanaagsan oo xaqiiqi nolosha ma jirto qofka inaad xaqiiq ku abaarto xaqiiq ku doonato xaqiiq u sheegto nolosha waad guulaysanaysaa aakhiriya adduunkaba de maalin adduunka mar lama dhisino de ninka adduunka ugu badan lacagta sameeyaba maanta dhasho waxa laga yaabaa hooyadii inay qeyd lahayd ama aanay nolosha waxba haysan lacagta waa la sameyn karaa Cabdiraxmaan waxaan daba socdaa hadalkii walaalkay Mustafa waxaan leeyahay horta marka hore qosol ku baxayna wada jooga kaliya iyadoo la kala maqay baa la wada qoslaa iyadoo la kala maqay baa la wada shakeystaa waliba wala sugu labisaaban leey waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo dharka maanta waxaan ka saaxirta kamar dufro dharkii laga bedela laga yaabaa qodob kale daba socda waxa weeyaan rag la leeyahay wala biiliyaa halkan bay joogaan oo xaasiskooda xagaa ku maqan taas waa dood jawman anu arka kale wax kasta oo majority ga markasta wala qaata laakiin hooda qabta sidaas hooda qabta waxay leedahay hoodu inamadii waxay ka cararayaan biilka hooda tusaalahan waxaan u siin lahaa aniga Saciidba waxaan ka mid nahay qolada haddana maanta waan shaqaysanaa maxaan u kaliifay waxaan u sameeynaa nalagu soo dirway lacag la guriga iska joogi lahayn laakiin taa anagoo ka duulayna oo doonayna dhalinyaranimadeeda iyo xirfadeeda aan ku shaqaysano iyo xoogayga ayaan haddana aniga Saciid u sameeynaa inaan ku shaqaysano aan binana lagu soo dirin waxaan bil haddii la isku dirana doorto laba qof oo nolosha wada wadaagay wala iskaashanaya malaha laakiin inta ugu badan propagandaha waxa suuqa geliya oo ka shaqeeya oo yiraahdo ragga waa la beeliya waa inamada aan xaasaska lahayn weeyaan waa Mustafa iyo Cabdirashiid iyo inala fadhiyo Soomaa qoladana waxa leeyahay iyo Muxidiin iyo qoladana waxa leeyahay horta labada group-madka dhinac oo ku biirtaan bay dood inoo taagan tahay laakiin propagandahan iyaguna inay joogayaan adiga gooraha gacanta taagay Saciid oo ku soo noqday Cabdirashiid hortaan sira baraxe anu kuma jiro qolada dhexda taagan ee qolada xaslaasha magaalada degan man kamid ah xaaskayga magaalada joogto alxamdulillah halkan waan ka salaamay gabadha Xamdi Xasan waxaan daba socdaa hadalkayga walaalkay Mustafa oo yar damqay Mustafa dumarka horta waa dumarkii laakiin marxaladda isbedeshay iyo waaqicay maanta ku nool marka guriga ku tagto baan day ogaan doontaa inaad gabadhii uu tahay sidii hooyada loo qabay inaad u qabi doontaa horta dumarka waa dumarkii marxaladda isbedeshay waxa weeyaan environmental horta gibiga nolosha way iswada bedeshay awal waxaan ku xisaabtami jirnay qofku wuxuu hayo imka qofku wuxuu hayo qofkii kale kuma xisaabtamo wuxuu heli karay dadku imka maanta ku xisaabtama taa Mustafa kaga hadaya tii walaashayna way yar daba galeen yar hooday waxa ku kalifaysan in raggu been idin sheegaan guri weyn oo fiilaan lahayn oo garanay dushayda ka tusaan idinka ku kalifay sababta uu kalifaysan waxa weeyaan adigu markii hore ka dhax arkay ama ka dhax qiyaastay in karti kasta ama xirfad kasta oo kugu soo xareen kara ama beenaha tamarna ahaatee oo kugu hayn karayo laakiin aanad runta aanad kula joogin hadduu runta kuu sheego dee kula joogmis ninna dee maanta gabadh qurux badan oo la hasaawayo iskama sii deynayo xeeladu ku soo xareen karaya ha ku soo xareeyo waa inuu soo xareeya ayuu dee falowgeed qabanaya ta inamada ku kaliftay inay beenta sheegaan ee hadhow waxyaabihii hablaha u ballan qaaday ay soo bixi waayaanna waa idinku dib iskugu yara noqdaan way Saciid waxaan u gudbayaa habka nadariye iyo ayaan gudbayaa laakiin Saciid daniyow bini'aadanku waa kala duwan yihiin oo dadka qaar waxa jira dee beentuun masaarifaysto marka waxaan u maleynayaa hoodo beenaa la helay ya arrinta kale jirtaana maamahadii ahayd dumarka been baa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaa runtii aanu ma aaminsanay gabadha markaad dibadda kala joogtaan haddii aad runta u sheegto markaad halkaa guriga tagtaana waa isfahmaysaan laakiin marka hore haddaad been ugu soo sheekaysay ood been u sheegtay dee hadhow runtii baa imanaysa markaa soo jeedinaha iga noqotee waxaan leeyahay dhalinyarada markaad sheekaysanaysaan war haddaanaad waxba haysanna inanta u sheeg dee haddii aad wax haysataan hadda wixii aad haysato markaa dee hawsha mubaarak goorahan ba aad baa lagu hadal ayaad isku haysaa hada inaad hadasho maxaad kaaga baxay doodahaas way aniga doodaha waxa iga baxay horta labada qolo ee dhalacaynaysa laakiin waxa muhiim ah horta inta mubaarak marka hore ma waxa qolada soo soctaanay way dhalinyartaad kamid way inta horta qolo aan dhalacayn horta qolada mas'uuliyadda ma qaad ka qolada ay leeyihiin mas'uuliyadda ma qaad karto horta marka horeba reer baa la yeelaya labada qof ay mas'uuliyadiisa wada leeyihiin qofku waa inuu fahmin qofka inuu isagu iska leeyahay u tahay wax yar guriga u dhex jooga laakiin waa inuu fahmaa inay reer kaliya qoyskan ay wada leeyihiin iyaduna ay u fahantaa in iyaguna ninkii iyo gabadhu ay reerkan wada dhisteen oo kaliya aanu ka mas'uulahayn
haddii labadii qof ay wada fahmaan mas-uuliyaddii reerka oona qolobaana dhinac ku turan hadhow inantii guriga fiican la tusay aanay ku qacin waar hebel markii hore uu ii sheekinayay beebi uu soo xirigeliyay imkana wixii waa inuu siiyaa marka waxaad meesha hadhow way ka baxayaan marka wixii oo dhan way baxayaan reality ayaa xaqiiqdii baa lagu noolaanaya imika dhalinyar baatin adiga iyo Mustafa iyo Cabdirashiid iyo aan idhaahdo iyo Muxidiin markaad la sheekaysanaysaan ay xasaawu socdo maxaa kalifayay inaad tidhaahdaan waxaanu leenahay 7 daarood iyo 7 gaari iyo maxaa waaqica inaad markaa u degtaan idiin diiday horta dee horta runtu way wanaagsantii qof walba qofku wuxuu isleeyahay horta dhaqtareed wax kusoo jiido inta laftarkeega iyada laftarkeega xagga bay iska soo dhisaysaa oo iyada laftarkeega hormayso wax xaqiiqdii ka wada laga hadli maayo marka waxaad iyaduna waxa sheeganaysaa inta ka sheegatay ha iyaduna inta ilaag bay sheeganaysaa maxay iska difaacsan hadda horta iyada ma oran karno wax statistics oo sax ah research la sameeyay waa waaqic oo de ma oran karno laakiin wada meelawaad ama fikranaga inaga yimid haddaba haddaynu waaqici garnaamaanu iska difaacno qofkan bilaadanka markaad la sheekaysanaysid nin ahaan haddaad fishinkaagii mishinkaaga hiisigaa himiladaada ka arki weyd ma odhan kartid uguma sheekayn kartidba qofkan iskama jeclaan sababaad ku jeclaanaysa waa inaad markaa runtaad u sheegta marka hore kadib runtaad sheegtaa hadhow guri kugu dhisasa maaha laakiin aad qofkan bilaadanka been marka hore soo sheegtid ma odhan karno dumarka ayaa wax walba ugu wacana dumarku ishay ka arkaan buu qofka bilaadanka kula dhaqmaa marka waxaad leedahay marna idhaahna aad leedahay waad iska fogeynaysaa oo marka iyagu dooda ragga inay idiin sheegaan beenta oo ay yidhaahdaan dee waatan maama haddaba beena kusoo geli xerogeli runna ku dhaq soo ma marka ma waxaad leedahay beenta ma sheegna waxaanu lenaana war maxsuulkana taabsiya haa dee qofka beelka masxuulka taabsi sidaday kugu xiran marka saasaad ku tiraadaan waay oodo horta mid baan leeyahay oo walaalkii Saciid horta labadiinaba sharaf baad mudan tihiin alxamdulillah horta aniga beena leeyma helin cid beena sheegtana weli ma arag ta kale ah inay habluhu ku kalifaan ragga inay waxa soo beena sheegaan kuma kalifaan iyagu ragga inay waxa soo beena sheegaan haddii ninku isku kalsoon yahay marka hore gabadha isagu runta u sheego marka koowaad horta waxa muhiim ah inaad isweydiiso dumarka yaa ka mas'uula raggu adduunka oo dhan baa lagu talagalay inay bedelaan misaanu bedeli karin isna ruux dumar ah oo nusa uu leeyahay ida igu kalifaysa inuu maxay heedeen beenta u sheegan guriga dhakada ka tusay gaariga beentan saaxiibka ka soo kaxaysanay marka idinka waxa soo dhan iskugu maxay heed u sababa idin waxa soo dhan wad bedeli kartaan waana ka hortay kartaan dumarkana runta wad u sheegi kartaan aqligooda dumarku uu jilicsan yahay waa masaakiin mubaarak oo isu xuri inta aan rag u sheegan ay hablihina sheeganaya waxba kama jiraan hay dumarku sheegtaan daba loo geeyo gurigooda ma ka soo habla yar buugi qalin baysitaan waagan waxaan u gudbinaa mawduuca labaad ee barnaamijkeenan falanqaynta toddobaadka maxamed caqabadaha guurka lamaanaha kala fog maxaad nooga sheegi kartaa wallahi wax badan baynu ka sheegi karnaa waxaan odhan karnaa jimcaha iyo khamiista iyo sabtida dadka qurbaha dadka kala fogi dee waa isku noocun markaa nolol isku noocina dee qiimaheedii wada sidee isku noociin bal u sifasay dee jimca male oo axad male oo sabti male wixii waa isku suudadiis marka waxaan u baahannahay si nolosha nolol noqoto in dadkii qurbaha joogina qurbahoodii ku noolaadaan oo ay noloshii halka ku qaataan kuwii halkanna dee ninku inta jaarkooda iska guursado horta qoraalka ilaahay waa qoray mar walba ama dadka wada joogeen isguursaan ama wixii dee kala fogbayn isguursaan laakiin micnaha guurka iyo macaanka guurka wax dhamin karaysa xaqiiqatan dee markaa runta loo soo dhaadhaco markuu qofku ku ag joogo for example adigoo imaka xaaskaaga hargeysa degan yahayba waad shaqo kaga maqan tahay gobollada Somaliland oo kaleba labada cisho gurigaaga joogto kula mid ma aha 5 cishaad ka maqnay marka haddaan dee taasi sii taakiidiyoon oo saaxiibkay uu sheegay ninkayga horeeyay kulli dee saa uu ka dhawaajiyay dee horta waxaan ku jiraa nimanka dhexda ku soo jira dee ninkii reerka lahaayee ma garanaysaa inkastoo noo sheegay inay gudaha aad hawshaad ka waday in dibadda anu gudaha ka wada anu gudaha ka wada marka de kulli caqabadu way iska badayeen oo qofte lamaana nolol aad ku wadaagaysaan oo de inuu ka maqnaado horta way yara adkaanaysa marka waxaan odhan lahaa marka horeba waa ninka dalka joogaana ha iska guursado ta dalka joogta ka dibadda joogaana mid halkaa joogta ha iska guursado waan odhan lahaa waay ridwaan waxa wanaagsan de marka la leeyahay dibadii baa la tegayaa mid kale way soo gelaysaa dalkiina waa laga wada sii socdaa ee dalkiina u haraya ayay noqonaysaa marka caruur ay yimaadaan ubadu soo kordhana waxa qurux badan oo wanaagsan in aabba iyo hooyo ay wada koriyaan akhlaaq ahaan aqoon ahaan
iyo maskax ahaan dadka waalidkooda wada nool yahay ee wada joogaan iyo carruurta aan mid leh ama ay labadii kala maqan yihiin xitaa maskax ahaan way ku kala wanaagsan yihiin waxaan leeyahay caqabad waxaa inoogu filan ilmo yaroo aabbihii loo kala turjumayo luqaddu ka hadlayo oo la odhanayo waxaanuu leeyahay waa problem aada u weyn anigu 3 carruur aan leeyahay allaha barakeeyo cimriga ha u daayo wax ka qurux badan ma jiro markaad soo kacdana inaad qur-aankii ka dhagaysato markaad shaqadii ka soo baxdana inaad buuggii qalinkii u hayso laakiin markii inankaagii lagu yidhaahdo afisuu dhasho kula hadlo ay lagu kala turjumay xitaa isagoo kumaagii lagu yidhaahdo ku ammaanaya te problem bay noqonaysaa wax loo baahan la qabto waaya siciidow aad baa laydin dhaliilaya oo waxaa leeyahay qurbihii waxa ka wanaagsan gudihii maxaad si ka difaacaysa horta niyo waxa muhiim ah in la ogaado ujeedada la isku guursanayo ma aha qofku shakhsiyadiisa siduu wuxuu la kulmay iyo wixii uu arkay inuu nolosha ku dabaqo aan waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa labadii isfahmaa hadday doonaan midna cirka ha joogo midna meel kale ha jooga inay isguursadaan laakiin tan carruurta dhibaatada ka imanaysa lagu leeyahay waa lagu kala turjumaya dee niyo anigu ismalihi baylaha baa ku imanaysa ilmo yaroo hooyadii la jooga dhammaanteen saynu aaminsanahay aabihii arag miyaa horta luuqadda aynu ku hadlayno inta ugu badan aabuhu inama baro inalaba joogay da subaxii uu shaqo tagaa ilmaha cidda ababisa waa hooyada in hooye iyo in aabba la idhaa hooyadii uu mar walba ag joogaayo hooyadii baa ababisa oo ka shaqaysa oo wax walba u sheegta horta taa intaasaan kusoo dhaafaya runtii maxamed isaguna wuxuu aada u soo hadal qaaday wuxuu yidhi jimcii baa meesha ka baxaya maxamed waxaan u malaynayaa badda maaha isagu jimcuun buu guursadayba yaa markaa noloshuna waxaa leeyahay maxamed jimcaha maaha ma garatay isaguna mubaarak laftiisa doodiisu aad bay caawa noogu adkayd maadaama uu sheegay inuu ka mid yahay dhallinyarada aan weli guursan isagaana noogu weyn horta guursaan le isaga intaan caawa meesha fadhida tan jimcaha iyo khamiista ee maxamed ba sheegay maxaad adigu kale anigu taa waxaan ka aaminsanahay waxaban leeyahay labada qof markay kala fog yihiin ayaaba isku soo xiisoonayaanba qofkaagii oo muddo kaa maqnaa dee waad u xiisoonaysaa markaa waxaan leeyahay maxamed si uu noloshan u dareemo oo qiimaha xiisaha u dareemo ka yaro fogaa baan leenahay maxamed waayahay mubaarak qurbaha markii uu inantii marka qurbihii laga tagay inaan qurbihii jooga guursado dhibaatooyinka ugu badan horta hargeysta haysta weeyaan waayo labadii qof way adkaanaysaa horta yurub kole way garanaya qolooyinkan yurub laga joogay yurub badanaa waxa la interest gareeya loo keer gareeya gabadhu markay ninku uu ka joogo waddanka oo waa loo qaadaa laakiin ninka gabadhu xagga ka joogto looma baxo oo way ku adagtay marka innaka caqabada ugu weyn nagu leeyahay waxa weeye reero badan oo baabaa hablo badan oo inaga xumaada marka waxaan anigu soo jeedin lahaa war intee dhib ka badan uu inoo keeni lahaa in dibad loo yaaco dalkeenii waa maasha Allah lagu jiraa in iska bismiirsano bisinka qabo waayahay maxamed dhibaatada ay leedahay caqabada uu leeyahay kala fogaanshaha labada lamaane maxaad ka oranay qofku markuu waxa la waa lifetime commitment oo noloshii qofkii aad wadaagaysay inta idii harsan ee adduunyada inta dhan aad kala soo baxday marka aad guursanayso waxaad leedahay ujeedooyin danaga ku gaara oo aad kaga duwan tahay dadka kale oo u guursanayso ama jimco u guurso ama axad u guurso waxay danbaa jirta aad u guursanayso maxay qolada markay ay geliyeen guurka ah qofka ka maqan inay guursadaan dantii ay u guursadeen baa taalla meesha oo ah hebelka isagoo halkan joogay halkan haliila joogo uu ka dan duwan yahay kan kale in lagu tixgeliyo dantiisa iyo cabdirashiid horta goorahan baan aamusnaayo qolooyinkii laga maqnay kuwii loo joogay oo isla kaaya jeeray kuwayaga aan weli aan meel dayin anigu fikir ahaan horta waxaan qabaa mar kastana aan taageersanahay sidaan aniga fikirkayga aan qabo calafkaygu meeluu noqon doono wallahu aclam saaxiibkay baa yidhi kuwaan weli reereyn baa nagara dacaydiyo markaasay yidhaahdaan way biil doonteen ma qabataa waayo ninaan meelba idaacaddiisa soo gelin lagama yaabo inuu cid wax ka sheego iyagana waan isugu ducaynaa kuwa laga maqan yahay in la isku keeno kuwa halka jooga waan isugu ducaynaa hadda annaguna wadadaan haynaaye baarka intaan helayno ducadaan wadaynaa marka mar walba gudaha joogtaa mise xagga waa qurbaha wallaahi baarka kaygu ma dhawaa marka waxaad leedahay waa qurub ma leedahay may meel lama sheegi karo way meel lama sheegi cabdiraxmaan dhibaatada lamaanaha kala fog kolley
dhibaato lamaana kala fog anu ma arkayn halkaas dhibaato taalo kala caqabadna kama arag tan jimcaha iyo sabtida iyo xadana horta anigoo dooda u soo socdaa maxamed taajir waxaan leeyahay haddii de jimcu isagu mid kaliya yahay annaga 7 cisho waa wada jimc horta dee runtii kelmadda soo qaatay caqabad ah ayaa laftigeeda yaa caqabad laftigeedii ahba sababtoo ah qof laga maqan yahay to horta caqabad ka weyn ma jirtaba waaba laga maqan yahay baraaro uu sheeganay khayr uu sheeganay horta midooba jirtaba oo de noloshu isagoo calaashad wuxuu ku sheegay dumarka iyo carruurtaba qortu wacyo waa indhaha farxadooda weyn moogtay dad labadii mid aan haysan waa mushkilad waxaan doonayaa shagar xan ka yara sheegaynaa saaxiibna baa halkaas u degan yahay moogtay qurbaha marka halkan reer ku laayay meel baa dhashay markuu 2 sano marayo ayuu habeen kasta wuxuu ka daawan jiray koolka moogtay aabo markuu yimid wadankii ayuu ilmihii garaway eenay abihi markuu garaway moobilkii loo soo qaaday sarwaa kan aabo markaas uu waa kan aabo haga leeyin kar maaha marka wuxuu hadii ilmahaagii lagu barayo oo dib isagoo kula qabsay 2 bilood oo kula joogay haddana uu noqonayo haddana 4 sano ka bacdana la keenayo haddana luqadii haddana la barayo waa mushkilad baan leeyahay marka caqabada ugu weyn wax weyn kala maqnaanshaha caqabada haddii laga maqan yahay waa caqabad sida walaalkeen sheegay waayo markii jirto distance uu jiro dee distance-ka qofkaas uu ku jira dee waxyaabo badan baa horumar maraya qofkii waa loo khayraaya iyo dee gaabkaas khayraada keenaya khayraada qofkaas ku bilaabantayna wax keensay in kalsoonidii meesha ka saarto anigu waxaan ka shaqayn jiray iskuulada marka waad arkaysaa ilmaha yare aabihii hooyadii soo kariyeen oo aabuhu ka dhagaysanaya casharada iyo ilmaha yare kale isku mid maaha asal ahaanba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalayaasha barnaamijkeena falanqaynta toddobaadka oo aynu caawa ku eegaynay dhibaatada guurka iyo weliba lamaanaha kala jooga masaafada kala fog iyo qurbaha iyo weliba dalka barnaamijkeenan waxaa falanqaynta toddobaadka caawa igala qayb qaadanayay suxufiyiinta aqoon-yahanka dhallinyarada ardayda iyo weliba dhakhaatiirta aniga iyo oo idila socodsiinayo cabdirashiid cabdiwahaab xuseena iyo asxaabtii kala duwaneed ee universal t v stuudiyaha magaalada hargeysa dhammaantayo waxaan idiga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu